qof kasta wuu garanayaa sidii guri qurux badan loo dhiso, laakiin dad yar ayaa garanaya sida quruxda badan ee loogu noolaado. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waa maskax koriye channel. waxaan maanta idin soo gudbin doonaa xigmad ku saabsan xiriirka lamaanaha. ogow inaad xiriir fiican qof la samayso waa shaqo joogto ah. ana isku dayin inaad shaqada doonato haddii aadan diyaar u ahayn. xiriirka wanaagsani waa marka uu qofku aqbalo wixii aad soo martay, kuguna taageero waxa aad hadda tahay, kuguna dhiirigeliyo mustaqbalkaaga. inaan xiriirka lagu murmin laguna kaftamin waxay ka dhigan tahay inuusan xiiso jirin, maxaa yeelay dadka aadka isku daneeya way murmaan wayna wada kaftamaan mararka qaar. marnaba qof xiriir hore idinka dhexeeya ha dabagelin sirtiisa. afaafin si kastoo aad u kala dheeraataan, ogow wuxuu qofkaa ku aaminay xilli aad isu dhaweydeen. xiriirku waa sida guri oo kale. goortii dhalada nalka ay gubato, intaad baxdo ma soo iibsatid guri cusub ee waxaad hagaajisaa guluubka nalka oo keliya. xiriirka wanaagsani ma aha wax iska dhaca oo iska yimaada, wuxuu qaataa waqti, dulqaad iyo lamaane waayo adag wadajir ugu wada gudbaa. iska ilaali si kastoo aad u murmaysaan lamaanahaaga, marnaba kor ha u wada qaadina codkiina oo cadowgiina yuusan idinku farxin. ugu yar waxaad doonto xodxodasho haddaad samayso xilli aad xiriir ruux kale kula jirto waa khiyaano. qof kasta wuu garanayaa sidii guri qurux badan loo dhiso, laakiin dad yar ayaa garanaya sida quruxda badan ee loogu noolaado. waxaan si xushmad la idinkaga codsanaynaa inaad channelkeenii maskax kori subscribe saartaan, furitaanka balelkaasi idin dhaafin macluumaad kasta aan idiin soo gudbino. like, share, comment aadan naga ilaabin. mahadsanideen.